kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada durdurka wararka waxaanu idiin soo gudbinaynaa xogo xasaasi ah oo ku saabsan howlgallada 48 saac ee u dambeeyay ciidanka Puntland ay ka sameeyeen buuraha Calmiskaad guulaha ay gaareen iyo sidoo kale Galmudug oo markaasi noqotay state-kii ugu horeeyay ee garab istaaga Puntland kuna garab istaaga dagaalka ay kula jirto kooxda Daacish sidoo kale waxaanu idiin soo gudbin doonaa xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho oo soo saaray go'aan culus iyagoona markaasi fariin adag u diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inta guda galin waxaan ka codsanaynaa haddii aad tahay markii kuugu horeysay soo booqatay in subscribe-kan oo taabato muuqaalkan like asaarto si dad badan uu gaaro aynu ku bilownaa buuraha Calmiskaad waxaa 48 saac u dambeeyay ka dhacay howlgallo qorsheysan kuwaas oo isugu jiray dagaal markaasi toos ah iyo duqeymo ay geysanayaan diyaaradaha markaasi dagaalka ee dawladaha saaxiibka la Soomaaliya Puntland sidoo kale waxa markaasi sheegtay in ay gacanta ku dhigeen xubno ajaanib ah oo firxad ah kuwaas oo la tuhunsan yahay in ay markaasi kamid ahaayeen kooxaha markaasi ka dagaalamaya buuraha Calmiskaad ee Daacish howlgalkan oo ilaa haatan ka socda buuraha Calmiskaad ayaa waxa jiidaha hore ee buuraha Calmiskaad gaaray saraakiil iyo jeneraalo markaasi culculus oo kamid ah generaalada ku sugan deegaanada Puntland kuwaas oo u tagay buuraha Calmiskaad in ay dardar geliyaan howlgalka ka dhanka ah kooxda Daacish isla markaana ay wixii talo iyo waaya aragnimo ah ay markaasi ku darsan karaan howlgalka ay ku daraan waxaana xusid mudan in saraakiisha iyo generaalada goobtaasi tagay uu kamid yahay General Morgan oo in badan bulshada Soomaaliyeed kamid ah ay markaasi xasuustaan howlgalka oo haatan markaasi si xawli ah uga soconaya buuraha Calmiskaad ayaa waxa ciidanku ay marka ka dambayso ay gaarayaan goobo hor leh iyagoona markaasi gacanta ku dhigaya fariisimo iyo saldhigyo ay horay ugu sugnaayeen kooxda Daacish saraakiil ku sugan buuraha Calmiskaad oo maanta warbaahinta la hadlay waxa ay markaasi sheegeen in ay heegan u yihiin markastaba difaaca dadka iyo sidoo kale dalka markaasi isla markaana aysan u baahnayn wax tacsiya haddii ay geeriyoodaan oo ay yihiin dad kaliya waajibkooda markaasi gudanaya saraakiisha sidoo kale waxa markaasi ay sheegeen in ay dagaalka si laba jibaari doonaan isla markaana uusan wax hakada ku imaan doonin waxa markaasi sidoo kale saraakiishu ay sheegeen in haatan ay markaasi rajeynayaan in maalmaha ina soo aadan iyo saacadaha soo socdo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Puntland in ay maqli doonaan war markaasi farxad geliya oo ku saabsan kooxda Daacish sidoo kale saraakiishu waxa markaasi ay digniin adag u direen kooxdan iyagoona markaasi ugu baaqay in ay soo dhiibaan inta goor tahay haddii kalena ay godadkooda markaasi ugu gali doonaan ciidanka difaaca Puntland ayaa muddo bil ka badan waxa ay markaasi dagaal adag kula jiraan kooxda Daacish xilli ay xusid mudan tahay in dhanka Puntland uu soo gaaray khasaare marka loo eego muddada uu dagaalka markaasi ka socdo buuraha Calmiskaad ciidanka ayaa haatan waxa markaasi ay ku sii siqayaan deegaano hor leh iyadoo markaasi la iskala tagay aaga Toga Jacayl waxaana markaasi ciidanka haatan ay wadaan howlgal nadiifin ah oo ay markaasi cagta ku marinayaan dhammaan goobihii markaasi laga soo abaabulay weerarkii dhawaan lagu qaaday saldhigga ciidanka difaaca Puntland ay markaasi ku lahayeen deegaanka Harariyo ee aaga Toga Jacayl dowlad goboleedka Galmudug ayaa markaasi noqday state-kii ugu horeeyay ee markaasi si cad u garab istaaga ciidanka difaaca Puntland waxaana markaasi xusid mudan in halkaasi ay geeyeen gargaar kala duwan iyagoo markaasi ku garab istaagaya ciidanka difaaca Puntland wasiirka xanaanada xoolaha Puntland oo la wareegay gargaarka markaasi uga yimid dhinaca dowlad goboleedka Galmudug waxa uu sheegay in Puntland iyo Galmudug ay markaasi leeyihiin hal cadow sidaas darteedna Galmudug ay markaasi Puntland ay soo dhaweynayso cid walba oo markaasi garab iyo sidoo kale gargaarba u wado deegaanada Puntland maadaama ay xaalad adiga ka taagan tahay deegaanada qaar oo dad badan ay markaasi ku soo barakaceen Galmudug sidoo kale waxa markaasi xubnihii mas'uuliyiinta ee gargaarka wareejinayay oo u hadlay ay markaasi sheegeen in ay si buuxda u garab taagan yihiin
Puntland islamarkaana gargaarka haatan ay gaarsiiyeen deegaanada markaasi Puntland inuu yahay hordhac balse si cad ay markaasi u garab taagnaan doonaan ilaa inta howlgalka uu markaasi ka soo ilaanayo. waxaana markaasi ay sheegeen in xataa ciidamo markaasi ay ugu talagaleen in ay ku xoojiyaan ciidanka howlgalka ku jiro ay markaasi u direen oo haatan ay markaasi ku wajahan yihiin deegaanada markaasi dagaalada haatan ay ka socdaan gaar ahaan dhulka buuraleyda ah ee Calmiskaad. waxaana mas'uuliyiinta Galmudug ay sheegeen in ay garab taagan yihiin walaalahood Puntland oo markaasi ay daris yihiin isla markaana wax walba oo iyaga cadow ku ahna uu cadow ku yahay dowlad goboleedka Galmudug. dhanka kale haddii aanu aadno magaalada Muqdisho, midowga musharaxiinta mucaaradka ee ku sugan waxa ay soo saareen war-saxaafadeed wadajir ah oo ay markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay digniin kama dambays ah ay u direen. waxayna markaasi sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay inay dhageysato talooyinka iyo cabashada ay qabaan musharaxiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho. war-saxaafadeedkan oo si wadajir ah ay u soo saareen ayaa waxa uu ka duwan yahay kii ay hore u soo saari jireen. waxayna markaasi sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in ay dhageysato talooyinka ay soo jeedinayaan midowga markaasi musharaxiinta mucaaradka. haddii ay dhageysan weydo oo dowladda ay ka dhaga adeegtana ay markaasi qaban doonaan doorasho ka madax bannaan mid ay qorsheynayso dowladda federaalka Soomaaliya oo barbar socota. waxayna markaasi dowladda ay ku eedeeyeen in ay markaasi wado doorasho kaliya ay madaxda haatan talada markaasi xukunka joogto ay iyaga wax walba ay isu qoondeeyeen, taasina aysan noqon doonin wax markaasi socon doono. iyagoona markaasi dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqay in doorashada uu dhaxda soo dhigo oo ay noqoto mid u dhaxaysa dhammaan musharaxiinta markaasi ku loolami doonto kursiga ugu sarreeya ee dalka. waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay ku eedeeyeen in ay isku dayayso in ay caburiso madaxda markaasi midowga musharaxiinta ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyadoona u adeegsanayso awoodda xukunka iyo sidoo kale awood markaasi military. balse taa beddelkeed midowga musharaxiinta mucaaradka waxa ay markaasi sheegeen intaasi aysan socon doonin isla markaana ay hadda ka horna socon weyday. waxaana dowladda ay ugu baaqeen in miiska wada hadalka ay ku soo laabato, taa beddelkeedna ay dowladda markaasi garawsato waxyaabaha xilligan markaasi looga baahan yahay oo ah inay qabato doorasho markaasi wadar ogola oo dhammaan dhinacyada ay markaasi u dhan yihiin. doorashaduna ay noqoto mid dhaxda u taallo dhammaan musharaxiinta ku loolamayso kursiga ugu sarreeya ee dalka looga arrimiyo. baaqan markaasi ay soo saareen midowga musharaxiinta ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay markaasi xiriir wanaagsan la lahayn dowlad goboleedyada qaar oo qaarkood markaasi loolan siyaasadeed oo adag uu kala dhaxeeyo. waxaana taasi u sii dheer in waqtigii doorashada haatan markaasi wax yar ay ka dhiman tahay, xilli Xasan Sheekh Maxamuudna uu muddooyinkii u dambeeyey ku howlanaa safarro dhanka dibadda ah. waxaa la filayaa marka uu dalka dib ugu soo laabto in dowladdu ay qaadan doonto go'aano culculus oo markaasi ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale xiisadda dowlad goboleedyada qaar kala dhexaysa filla Soomaaliya.